assalaamu calaykum. Gabadhan waxay samaysay far cajiib oo ay ku qortay Qur'aanka Kariimka ah muddo 14 bilood gudahood. Gabadhan oo lagu magacaabo Faatima Sahaba oo ah 19 jir u dhalatay dalka Hindiya, jecelna farshaxanka gacanta iyo dhigaalka. Ka hor inta aanay qorin qorista Qur'aanka Kariimka, Faatima aabaheed waxa uu la hadlay muftiga, wuxuu weydiiyey inay gabadhiisu soo minguurin karto qorista Qur'aanka Kariimka. Si kastaba haatee ma jirto diiniyan wax diidaya in Qur'aanka gacanta lagu qoro. Marka Faatima waxaa loo fasaxay inay dhigaalka bilowdo. Waxaa jiri maalin kasta marka aan dugsiga ka soo laabto waxaan qaadan jiray waqti nasiino ah. Bacda salaadda maqrib ayaan bilaabi jiray soo minguurinta Qur'aanka Kariimka. Waxaan dhigaalka bilaabay bishii Agost ee sanadkii hore, waxaan si dhammaystiray bishii Sebtembar ee sanadkan 2021. Waraysigan waxaa ka qaaday BBC-da laanteeda afka Ingiriisiga.